muqdisho ama ha qaraxdo ama ha hilaacdo ama ha olosho aniga maxaa iga galay. Assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. kuwa kale wad ka dheeraysa oo wad nuuraysa habla soo dhawaada walaaladii qaaliga ha dadkii la iga beeray waxaan idin ku codsanayaa haddii aad ku cusubtiin kanaalka inaad subscribe noo saartaan soo kala muuqaalka noo like gareysaan oo aad share gareysaan oo aad la wadaagtaan asxaabtiina soo yaaca shalay dorad waxba soo maan galan YouTube-kayga sababo jira awoodod waana yeera xanuunsanayay madax xanuun la fakara hargab hadda saa u taqaanaan runtii 2 days waan iska yar xaaladaysnaa hawlahaas jiray ma sha Allah alxamdulillah recovery fiican ba soo qaadanay waa soo kacnay nabad qabaan idinku nimi waxaan rajaynayaa idinku nabad qabtaan waxaan idinku codsanayaa ilma adeeroyaal like iyo share iyo subscribe intaasi waa waxa kaliya tan marti idinka nahay lahayd ku qormayso dhac umad ka sinaysan saddex click oo kaliya taarto oo saarto ayaan ila caawdan la faraxsanaanay ay maxamed sakariya ay saar subscribe deeq xamdi yarba subscribe saartay iyo ay maxamed sakariya ay saar subscribe deeq xamdi yarba subscribe saartay iyo soo meedaan garan marka inta yar iska dhameeya waxaan rabaa inaan ka wada hadalno oo isku taagno laba mawduuc hal mawduuc ma laba mawduuca koowaad waxa weeyaan Malyuun Maanka iyo Sharma Boy ayuu khoseeyaa runtii kalabaad waxa weeyaan iskama tiiro wataqaana Soomaha oo xabsiga liinta ku cunaya ama liinta ku cabaya hayay war ilaadeerow maxay tahay sababta lagu xiray xog baan isagana inooga haya waa xaqiiq been ma aha maxkamada ayaa waliba si maalin la loo keenaa Soomaaliya garan muddo bil ah ayuu ku xiran yahay magaalada Hargeysa xarigiisu wuxuu daaran yahay maxay tahay sababta lagu haystaa xarigiisa qodobada loo cogsaday waxa isagana xog dhameystiran ma inooga haya Malyuun Maanka iyo sidoo kale Sharma Boy tabrihi ugu dambeysay wayna waale marra waaxid hayay ma jeclaan lahayd inay isku soo noqdaan Malyuun iyo sidoo kale Sharma ama Sharmaake ama Sharma Boy ama Malyuun Maanka aad soo taqaanaan runtii lamaana aad qurux badan ee runtii ubadna uu dhexdooda ka beermay bari ugu dambeysay muqaaladan halkan yaale ee aad arkaysaan ayaa baraha bulshada aad iyo aad ay isku soo taageerayeen Sharma Boy uu soo qaadanayay Malyuun Maanka la kadalik soo meedaan garan marka dad fara badan ayaa waxa markaasi ay sheegayeen inay Maanka iyo Sharma ay isku soo noqdeen oo ay dib noloshooda ay u mudeeyeen arrinkaasi maxay ka jiraan haddii arrinkaasi uu jiro horta waa wax aad loogu farxaday Soomaha waa runtii qoys islaama oo ubad dhexdooda yaalo oo awalna kala tagay haddana dib isku soo noqday wax ka qiimo badan haba yaratay taan garan mayno Malyuun maalmo ugu dambeysay magaalada Hargeysa joogtay waxa arkay dad fara badan oo laha Malyuun Maanka magaalada Hargeysa lagu xiray Malyuun Maanka waa shakhsiyada kaliya fanada kaliya Hargeysa timista laandheernimaha ugu laafiyoonaysa hayay oo wallahi bilaa tala reer Hargeysa iyo dumarka Hargeysa u dhashayba way kaga laandheereysantay abti ba laga bartaa ma maqashay abti nin wiil abti loo yahay ayaa laga bartaa yaani dabeecad xumada ama laandheernimada ama taagnimada marka Malyuun reebtigeed ay magaalada Hargeysa kula dalxiisaysa runtii oo waqti kula qaadsan aniga lafteedu abti baan wahay Malyuun shakhsiyadka waliba dadka aad ka ugu dhaweeyay abtiga u sheegan kara saxda oo aniga marka waxa leeyahay Maankooy abti Sharma dib inuu soo xiragelay Sharmarkana baaqban halkan ugu diraya oo aan leeyahay reerkaaga iyo qoyskaaga dib u soo noqo insha Allah waxna rajeenaya in ay hawshaasi ay suuragal tahay dad yoba arrinkaasi dhexdooda ku jira fanaanin oo nimcaan hilaac uu kamid yahay sida ugu maqaalaha markaan yaani xog is-iliraadi aan sidii dad la hadal waxa la sheegay in nimcaan hilaac arrinkaasi ka odaynayo oo uu rabo in markaasi uu labadaasi dib iskugu soo celiyo runtii qoyskaasina uu dib markaasi u dhiso nimcaan waxa leeyahay haddii arrinkaasi ay jiraan runtii waa wax aad loogu farxo shaqo fiican bad haysaa bal hoos u shaqaabo Sharma Boy magaalada Hargeysa inta joogta fanaaniintaana waxa leeyahay Malyuun Maanka hadii reer Muqdisho ay garan waayeen labadaas isku celiya in magaalada Hargeysa joogta Hargeysa sharaf bay qaadanaysaa waa radibaha la isku celiyo Soomaha aad oo mahadsantiin intaan kaga imaado ninkii iskama jiro wad taqaanaan in badan dhibaatada qaraxyada dhaawacyada dimashooyinka ka dhaca magaalada Muqdisho caasimadda dalka Soomaaliya oo ku farxay oo ku jeesay oo ku dul heesay oo ku dul raabay dad fara badan oo reer Hargeysa reer Somaliland fanaaniin leh salaadiin leh uqaal leh
way la hadashay sare iyo hoosba way ula hadleen waxay ku dhaaheen war arimahan aad ku socotaa mid adiga nolol ahaan ku anfacaysa ma aha mustaqbal ahaan kuma anfacayso wiil dhalinyaro baa tahay hadaf baad leedahay gool baad leedahay ka joog dhig jalaq waa u siin waayay ugu dambeyn abadamay qadaarkee waa inaad dhadhamisa waa loo daaray oo liinta ayuu ku cunaya ama uu ku cabaya xabsi ka mid ah xabsiyada magaalada Hargeysa mar waan ka naxay wiilka halka ku xiran marna waan ku farxay mar waan ka naxayo waa wiil dhalinyar ah oo mustaqbal leh oo rajo iyo gool adduunyada kale marka waan ka naxayo waxaan isiri miyaa dib liiskaga soo celiyo marna waan ku farxayo waxaan dib u xasuustaa dhibaatooyinka ka dhacay Muqdisho inuu maalin walba si maalin la markii dhibaato ka dhacdo uu ugu farxayay oo waliba reer Soomaaliland guud ahaan eedaas dhakada laga saaro reer Muqdisho lahaayeen reer Soomaaliland waa dad idin nacab waa dad cuqdadi dhaamisay wiilka hayar bay idin soo raaceen way idin ka qaban waayay markaana waan ku farxayo waxaan sidii bal maanta ha ogaadeen reer Muqdisho wiilkan yar in Soomaaliland oo dhan aanay raacsanayn oo ay markaasi kaliya uun arkan ka tahay aanimo in lagu hadalhayo in baraha bulshada laga hadalhayo haddii aad wax walba u samayso waa dhibaateynteeda leeg anigu ahaan in la daawado aniga isku haya runta idin sheegaya in 100,000 iyo 200,000 iyo 300 milyan in daawado aniga isku haya sababta isku haya waxay tahay haddii wax walba aan ka soo hadlo mawduuc walba dharka iska soo dhigto dad iska caayo dad iska aflagaadiyo aan waxba ay geysan dhibaatooyinkooda ku farxo dadku waxay jecel yihiin wixii markaasi xumaanta ah marka way daawanayaan laakiin haddii aan wanaag ka hadlo oo aan sulux ka hadlo oo aan si yaro degan oo nidaamsan dhowrsan dadka wax ugu sheego waxa laga yaabaa in fiugayga ama daawashadayda ay meel dheer ay gaadho weydo marka iska majirin magaalada Hargeysa ayuu ku xiran yahay sababta loo xiran yahay waxa weeyaan laba qodob ay dadku isku hayaan waa hanti oo lunsaday meheradu ka shaqeynayay buu hanti ka lunsaday oo runtii dadku qaar ay leeyihiin meheradaasi wuxuu ka kaasheer oo lacag ku dhawaad $1,000 ah ayuu ninkii ownerka ahaa shirkadda lahaa uu ka shaqeynayay uu ka lunsaday halka dadka qaar ay leeyihiin waxa lagu xiray waalid caasi oo hooyadii baa intay dalbatay xabsiga u taxaabtay kadib markii ay uga taag weyday war reer Soomaaliya ama geli war hadaladan foosho xun leh war amaan geli war nafsa haynoo soo jiidid war dhibaato haynoo soo hooyin oo dhan ayay markaas ku lahayd hooyadaasi kadib uu maqli waayay kadibna xabsi ayay dhaqo jiray waxa laga yaabaa in maalmaha soo aadeen maxkamadda lagu soo celiyo laba mid bay noqonaysaa in maxkamaddu ay xukunto oo xukunkiisa ay ku rido ama in la sii daayo oo aragkiisa la dhameeyo ani ahaan waxaan jecelahay dhibaato ugu filan muddadaas uu xirnaa bil iyo siyaado xiran yahay uu xabsi ku mid ah xabsida magaalada Hargeysa oo ku xiran yahay intaas ugu filan in la iska soo daayo oo aragkiisa la dhameeyo oo tulki iyo reerkiisu aragkiisa hoos u galaan reer Muqdisho waxa leeyahay sidoo idin ku farxay ha ugu farxinay xarigiisa waxaan jeclaan lahaa inaad bal u soo ducaysaan haddii uu soo gudnimo qaatay idinku gudnimo ha qaadanina ee gudnimo intaad qaadataan waxa tustaan waxa tihiino bal u soo duceeyo commentiyada duca meeyna ilaa xabsiga ka soo fur miskiinka ilaahow ha aan arko aad baa mahadsantiin bajale mawduucayna ku dheeraado tan iyo muuqaalka waxaan ku kulanno iyo walaalka wardi aadan oo dilay hadalkaygu bariyaan mar fiican oo idin ka arkayna halka ka hadlaysan ka Soomaaliland kar waxaan ka codsanayaa anigu caynkaas aan jeclaystay in video idin soo duubo waxaan ka codsanayaa subscribe aad noo sartaan kanaalka sidoo kale muuqaalka noo like gareysan oo share gareysan oo la wadaagtaan asxaabtina fikir iyo aragti waxaad ka qabtaan isla muuqaalkan xaq hoose نقول waxaan kaga tagayaa hawshu ha socoto